wafdi uu horkacayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay u ambabaxaan dalka Mareykanka si ay uga qayb galaan shirka iskaashiga Mareykanka iyo Afrika. dhacdadan oo ah shir madaxeedka ay isku arkaan madaxda Afrika iyo Mareykanka ayaa lagu muujin doonaa dadaalada joogtada ah ee Mareykanka uu ka wado Afrika, waxana uu hoosta ka xariiqayaa shirkani muhiimadda xiriirka Mareykanka iyo Afrika iyo kordhinta iskaashiga ku aadan howlgallada labada dhinac waa Afrika iyo Mareykanka. inta uu shirku socdo madaxda Afrika waxa ay soo bandhigi doonaan qorshooyin ku aadan isbedelada ku saabsan sidii ay ula tacaali lahaayeen caqabadaha qaaradda ka jira iyo fursadaha jira ee ay tahay in laga faa'iideysto. waxyaabaha sida xoogan loo falanqeyn doono waxa ugu horeeya sugidda amniga iyo xaqiijinta dawlad wanaagga, waana labada mushkiladood ee ugu daran ee qaaradda haysta. si gaar ah madaxda Afrika ka socota waxa ay shirka hordhigi doonaan mid kasta mushkiladaha iyo fursadaha dalkiisa ka jira ee iskaashiga iyo wada shaqaynta lagala sameyn karo. dabcan dawladda Mareykanka oo shirka garwadeenka ahna waxa ay soo bandhigi doontaa waxyaabaha ay tahay in ay ka caawiso iyo bedelka ay uga baahan tahay dawladaha Afrika. ka Soomaali ahaan waxa jira fursado muhiim ah iyo mushkiladaha dalka ka jira oo u baahan in dawladaha caalamka ay naga gacan siiyaan, oo ay tahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisu ay shirka ku soo bandhigaan. fursadaha dalkeena ka jira waxa kamid ah xagga maalgashiga iyo ganacsiga. Soomaaliya waxa ay leedahay kheyraad muhiim ah oo badda iyo bariga ah. dhawaan waxa soo ifbaxday in gudaha dalka laga helay macdan cusub, sidoo kale waxa socday baaritaanka shidaalka iyo howlihiisa. sidaas daraadeed dawladda Mareykanku waxa ay door lixaad leh ka qaadan kartaa baarista iyo soo saarista shidaalka, sugidda amniga iyo la dagaalanka xagjirnimada, dib u soo kabsashada dhaqaale iyo la dagaalanka saboolnimada iyo arrimo kale oo kamid ah mushkiladaha ugu daran oo maanta dalkeena ka jira. shirkan oo socon doona 13 ilaa 15 bishan December waa fursad ku xiran hadba sida ay uga faa'iideystaan wadamada ka qayb galaya. shirkan in la qabto waxa uu bilowday bishii Agoosto sanadkii 2014 xilligii uu dalka Mareykanka madaxweynaha ka ahaa Barack Obama. markasta oo shirka la qabtana waxa diiradda lagu saaraa mushkiladaha ay tahay in laga arinsado iyo fursadaha jira ee ay tahay in laga faa'iideysto. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay u noqonaysaa markiisii labaad oo uu Mareykanka u safro tan iyo markii dhawaan dib loo doortay, isaga oo kulankii hore uu ka qayb galay uu ahaa shirka golaha guud ee qaramada midoobay.